بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ولا ليال waxaad kusoo dhawaataan barnaamijyadii gaagabnaa ee aan ugu talagalnay inaan isku xusuusino sidaan uga faa'iideysan lahayn bisha Ramadaan xalqadan kooban waxay ku saabsan tahay xikmada ka dambaysa waajibinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu waajibiyay inaan soono bisha Ramadaan إلهي سبحانه وتعالى وحول بو ينقوا واجبي حكمة وين باكدن بيس دن بين إنوتهي مثلا بش رمضان إن للصوم أي إلهي سبحانه وتعالى نقوا واجبي حكمة وين كذا وحكم ذا إن أن تقوك هالنيا لك عبسي سيدو إلهي بو يري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دتكينا إن إلهي الرمي وصوم بالإذن كواجبي sidii qoladii idinku horeysay loogu waajibiyay sida darteed hadaad soontaan waxaad ka heleysaan waxaad mudantiin alla ka cabsi inaad ka heshaan qasadka ugu weyn waxa weeye soonka inaan ka dhaxalno alla ka cabsi xikmooyinka soonka waxa kamid ah inuu qalbigaagu uu u noqdo mid khaali u ah inuu fikiro oo ilaahay in badan xuso oo adduunkii iyo wixii uu ku xirnaa uu ka soo go'o markay caloosha gaajeysan tahay oo qofku ilaahay dartii maartay uga haray cuntadii iyo cabidii waxa badanaysa xuskiisa iyo xusuusta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xasuusan yahay taasina xigmooyinka bay kamid tahay xikmooyinka soonka waxa kamid ah walaalayaal qofkii hodanka ahaa ee maalin walba cunno haysay uu cuno inuu xasuusto inay jiraan dad badan oo cuntaba heli karin xataa hal wajbo ama hal mar maalintii aan heli karin marka waxa qofkaasi galaysa raxmad weyn in uu u naxariiso dadkaasi oo kale oo uu ogaado gaajadu haday sidan tahay sidee way haday dad maalin walba sida ay gaajeysan marka raxmad uu maartay halka timaado waxa kale kamid ah xigmooyinka soonka inaan tababar u helno nafteena inaan hanan karno oo aan waxa ay doonaysa aan ka celin karno ama aan ka joojin karno anagoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala arintaas ugu dhawaanayno xigmooyinka soonka waxa kamid ah مثلا in مجاري الدم تضيق بسبب الجوع ديغا meelaha uu maro oo jirkeena ayaa ciriiriyobay gaajada darteed sida darteed nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo noo tilmaamay shaytaanku wuxuu maraa bani aadamka jirkiisa meesha uu dhiiga maro markaas taasuna waxay keenaysaa shayaatiinta inay ku ciriiri noqoto oo markaas ay dhibaatada ku geysan lahaayeen ay halka ku yaraato xikmooyinka soonka waxa kamid ah walaalayaal oo iyadana maartay xikmooyinkiis kamid ah waxa ka ratimaay soonka oo faa'iidooyinka caafimaadka ah oo cuntada markii la iska yareeyo oo markaasi xataa dheefshiidkii waxa weeyaan habdhiskii dheefshiidka uu nasto oo maanta dhan hadii cunto lagu guro waxa dhacaysa maartay mishiinkii iyo waxyaabihii Ilaahay noogu talagalay shiidayay hadii ma aan la kala joojinin waxa laga yaabaa inay maartay runtii ay u baahan yihiin mararka qaarkood inay nastaan marka cuntadaasi maartay qofkii warku ka nastana caafimaad inuu ka helayo balse maanta dhaqaatiirtii muslimiin iyo gaalaba ay cadeynayaan caafimaadka ku jira soonka laakiin waxa loo baahan yahay in ujeedadii loogu talagalay ay cuntada in laga joogo ay ahaato wixii maanta oo dhan ka soomaneed habeenkii inaadan qallaynin oo aad maartay iska yareyso cuntada si caafimaadkaagina ugu fiicnaado laakiin qasadkii ujeedada loo soomayo waxa weeye Ilaahay in lagu raali geliyo oo maartay Ilaahay waajib ku saarayna lagu guto ma aha qasadku in lagu caafimaado iyadoo marka caafimaadkana uu yahay shay dhimni ah oo soo hoosgalay arintaas hada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh